afuradii haddaba aan u yimaado halka weeyaan halka hawle ka taaganta afurada ugu caafimaadka badan le aad rabadaan ku afuri kartaa muxuu yahay su'aal isweydiin la Soomaa afuradaadaas inta aanan afurada gelin xadiis baynu ku bilaabaynaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam saxaabiga Miqdaad wuxuu ka warinaya nabigu wuxuu leeyahay ma mala ibn aadam ina aadan ma buuxiyo weel ka shar badan min badnihi calooshiisa weelka ugu shar badan ee ina aadan buuxiyay maaha kuwa dahabka ka buuxisay iyo maaha lacagta halka maaha weelka ugu sharka badan la aad buuxisay waa calooshaada wax walba inaad ku rido nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ina aadam waxa ku filan luqaymaat hurmooyin yuqimna biha sulba oo dhabarkiisa ku toosinayo hurmooyin ba kugu filan aad soo taagto waxa weeyaan bal caadi soo taagto qofku markuu gaajoonayo dhabarku soo gotaa Soomaa sida xadiiska Khaybar ku yimi godkii waxa weeyaan ahzaab markay qodayeen xadiiska waxa ku yimi qaswatul ahzaab ka waramaya nabiga sallallahu alayhi wasallam gaajo darteed caloosha wuxuu ku xidhanayay maxay dhagaxba ku xidhan sababta ugu xidhanayay maxay ahayd uu isku soo laadmay marka wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam in aadam waxa ku filan hurmooyin uu dhabarkiisa ku toosiyo hadii aanad ka tagin inaad leedahay ma anigu cuntada aakhiraan u diraya calooshaada saddex u qayb baa lagu yiri qayb cuntada u daa qaybna hawada u daa qaybna cabitaanka u daa adwaarta marka qaybta hawadu mar walba caloosha way ugu sareysaa qaybta labaadna waxa la rabaa inay noqoto waxa weeye cabitaanka qaybta ugu hooseeyana inay noqoto cuntada ay noqoto marka saddexda u qayb hadaba afurada ugu wanaagsan waa afura kasta oo calooshaadu aanay ku dareemaynin dhibaato isla markaana aan dufan ka koobnayn borotiin culusna aan wadanin saddex shardi baan sheegnay Soomaan waa cunto kasta oo fudud oo hore laga nuugi karayo labo waa cunto kasta oo aan dufani ku jirin saddex waa cunto kasta oo borotiin fara badan aan la soconin borotiin fara badan waxaan ka jeedaa gaabantii iyo hilibkii iyo digaaga waxa aan cuno tusaalaha ugu wanaagsan saddexda shardiba buuxin kara waa maxay waa afurkii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabigu muxuu ku afuri jiray timir iyo biyo hadii uu waayo oo awoodi kar waayo timirta uu waayana muxuu ku afuri jiray biyo marka timirta wuxuu faa'iido jirku u baahnaayo dhan buu ka helaya timirta inta badan dadkeenu ma isticmaalaan guryaha intooda ugu badan bariis iyo baasta iyo sonkor caadi ah taala iyo sharaabkii sunta hayaan ka warramayay waxyaabahaas ay yaala laakiin timir ma taalo miyad maqasheen xadiiska Aisha miyad maqasheen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam Aisha kulay Aisha guri aanu timir oo lin dadkeedu way gaajoonayaan ma maqasheen xadiiska ya Aishatu baytun laysa fihi tamrun jiyaa'un ahluhu Aisha guri aanu timir oo lin dadkeedu way gaajoonayaan xilliga aad wax la isticmaali jiray cunto thriid la yiraahdo oo khatar ahayd oo kimis iyo maraq iyo hilib iyo waxa way qabarsanaaci waaweynku waxay cunaan ahayd cuntada nafaqo badan ahayd lama oran guriga aanu kaas oo lin dadkiisu way gaajoon laakiin waxa la guriga aanu timir oo lin dadkiisu way gaajoonayaan afura kaas ugu wanaagsan haddaad leedahay aniga timir iyo biyo iguma filla maxaa ku soo raaci kara aad ku afuri kartaa boorash khudrad inta la soo qaado tabacasaha hada halka u fiirso waxa la soo qaadaya tabacasaha in yaro kaabasha baatru muxuu ahay sheeg basal yar xabuub yar wax yar noocaas la soo qaadaya biyo lagu daraya koob biyo ama laba koob biyo dabka la saaraya wala karkarinaya maraq la yaab laba ka soo baxaya maraq hilibku ma baratay Soomaa maraq khudradeed ba ka soo baxaya la yaab oo caafimaad ah maraqana waad ku afuri kartaa maxay diideynaa in lagu afro sambuuska quraaci gaabantii aad balansanaysi gaabanta hilibada hudheelada waa la sii balansaa soo moogidin shanta galabnimo hadda tagto waa loo dul fadhiyaa nin walba gaabantiisa gaar buu ka hayaa waa halis weeyaan ma fiicna waxyaabaha aan fiicnayn waxa kamid ah biyaha qabow ee la cabayo ma fiicna marka aan kula wadaago dhowr shay oo kamid ah waxyaabaha la isticmaalo xilliga afurka oo aan caafimaad ahayn shayga ugu horeeya la isticmaalo waxa ugu horeeya aan caafimaad kahayn biyaha qabow ee la cabo xilliga afurka biyaha ugu fiican ee cabi kartaa waa biyaha qasabada ka soconaya waa biyaha heerkulka guriga leh room temperature wax loo yaqaan yaani heerkulka gurigu uu leeyahay oo kalun buu leeyahay deegaanka heerkulkiisu leeyahay biyahaas
وبيها قصبتها كسعنية أنت وجوه الرئيسي قصبتها صومر ترى لما شفتها قصبتها ولا فراء ولا يرسع عدسي عبار يرسع عدسي وحوالي مركز سعودة يعني كوب كاغ وديga biyaha cab saddexda xabeed timirta iyo koobka biyaha caafimaadka dunida wada haysa biyo qabow ha cab biyaha qabow maxay dhibaato leeyihiin biyaha qabow dhibaatooyin xagga uurku jirta bay keenaan dadka qaar kood xaalado yar oo culus bay ku keenaan inkastoo researches fara badan aan lagu sameeynin laakiin xaaladaha la ogaaday waxa kamid ah biyaha qabow markay caloosha ku dhacaan calooshana heerkulkoodu waa 37 biyaha qabow ee aad cabaysana heerkulkiisu waxa laga yaabaa inuu yahay 10 ama 15 wax la mid ah dadku xilliga afurka wadiga arko baraf fara badan baa la iibsadaa laba xabo biyaha inta leeg baa wax lagu dhaxliyaa xabad weyn oo baraf ah heerkulkaasi 7-8 meelahaas soo gaaraya biyaha qabo markay calooshaada ku dhacaan xididadii caloosha joogay loogu talagalay inay dheefshiidka qayb ka qaataan oo isku rag cuntada ay qayb ka qaataan markay biyaha qabo ku dhacaan way gigayaan markiiba xididadu way soo ururayaan ka bacdi hadhowta dheefshiid fiican lama sameeyo minarkii yaraayo wixii yaraayaad cuntay calooshaadu ku jiraya maanta oo dhan ka bixi maayo adna waadiga ay barakadii rabadaanta ay haysaa Soomaaliyeed dhibaatada halkaas ka imanaysa marka biyaha qabo cabitaankiisa isagana waan diideena arinka labaad cuntada labaad ee aan caafimaadka ahayn xilliga afurka la cunaay waa sambuuska hore 3 sano ka hor meelaha muuqaal aan duubay musaafir sano ka hor buu waxaan idhi sambuusku waa cuntada ugu nafaqada badan ee dadka Soomaaliyeed ay haystaan warka wad xasuutan Soomaha wali halkii iga taaganta sambuusku waa cuntada ugu nafaqada badan ee ay haystaan maxay dadkeenu ay haystaan ma jirto xabada sambuuska tayada la ka hadlaya de ma ka hadlaya xabada sambuuska ciyaalka iskuulaadka subaxii 500 laga siiyo maartay hooyo ku gooda maartay waa hooyo ku gookaasi kaas ka kama hadlayaan 500 ba geemgeeda laga siiyo wax nafla laga siin soo marka horeba muxuu ka kooban yahay kaasi daqiiq yar saliid la soo dhaxgaliya xabad baradhaayo jeex yar bana wax yar ku aamusiyo waxa ka sambuuska ka hadlamayaan laakiin sambuuska 1500 iyo ama 2000 ay siiyaan hodheeladii ay iibiyaan ama macaaliyaasha iibiyaan yara tayada badan leh wuxuu ka kooban yahay wax allaale wuxuu jirkaaga u baahnaa jirkaagu carbohydrate buu ka kooban u baahnaa daqiiqdii baa la socota dufan buu jirkaagu u baahan yahay waa tan lagu soo kariyay Soomaaliyeed 3 jirkaagu khudradu u baahan yahay basal iyo waxa weey dabacasa iyo mashaariic noocaas xabada sambuuska ku jira Soomaa jirkaagu wuxuu u baahan yahay protein hilib baa lagu kariyay sambuusyada qaar koodna waxa lagu sameeyaa kalluun baa lagu sameeyaa 5 nooc oo kamid ah waxyaabo jirkaagu u baahan xabada sambuuska ay ku dhex jirtaa maana cunto nafaqo lahayn marka hadda imka hodheelka tagtaa taado inta soo cunta ay sukeen dhaqaale intee leeg baa ka baxaya hilib halka soo dhigo inta gaabanta 50 laana laga diraya ama 60 laana bariiskiina waa tan soo dhisama khudradda in yaro furuud ay ka 15 laana wala 10 laana yana laga diraya marka 100,000 ama 150,000 bay kugu tagaysaa xabada sambuuskana wixii oo dhan bay urursatay Soomaa iyadoo xabada sambuuska cuntada nafaqada la ay tahay haddana cunto fiican maaha oo la cuni karo xilliga afurka sababtan u diidayna oo ku sababeynaya kow cuntadaasi waa cunto horta saliid lagu soo kariyo dufan bay leedahay carbohydrate fara badanna way wadataa sidoo kale waxay wadataa maxay بروتين iyo waxna ku jiraan cuntada noocaas ee culus calool 15-16 saacadood soomaneed ma qaadi karayso ilmaha yar marka ugu horeysa la yiraahdo cuntada hala siiyo maragta daadeeba ilmaha yar cuntada loogu bilaabaa ay gaarsiya imsa markuu jiro laba jir may intee 6 bilood weey warmaan caruurid la dhalan ilmaha yar waxa waajib ah in cuntada loo bilaabo markuu 6 bilood jiro 3 sano iyo 5 sano iyo gabowba markaas 6 bilood baa loogu bilaabay ilmaha yar cuntada weli ka arka hooyadu roodi yar iyo biyo yar oo kulul lagu darayo waxba la isku bashiqiyaayo faxiyo waxba loogu daraayo waxa saafka loogu garaa Soomaa khaladaad badan oo halka ka dhacaan oo jiraan ma gelayno muhiimka mowduuca kamina hadlayno okay ilmaha yar bal ka waran imika cuntada bilaabaya hadaad gaaban afka u geliso hada iska qabo ma cuni karaya waa maya caloosha xilligaas oo kala saasay la mid ah sida awgeed waxa ugu fudud lagu bilaabi karaa wax yar oo nuugitaankiisa iyo dheefshiidkiisu fududiya timirtu waxa kamid tahay waxyaabaha aad ka u fudud la dheefshiidi karo hadaba cuntada saliida lagu soo koriyo waliba qodobka dama xaq dama ka sharixi doona kaas aan horta kan hore ku socdo cuntadaasi markay sida loo kala burburiyo markiiba dhiiga lagu daraya
insulinta si degdeg ah loo soo deynaya insulin fara badan baa mar qore la soo deynaya insulintu shaqadeedu maxay ahayd midharkii yar wixii yar aad cuntay ee dhiigga lagu soo daray tamarteedii markiiba dhiigga dib uga ururinaysa sonkortii kabacdi waa la xareynayaa kaydka loo dirayaa cuntada dufan kale markaad cunto jirkaaga waxa ku dhacaya eegada sonkor fara badan baa dhiigga si degdeg ah loogu daray insulin fara badan baa la soo daayay markii insulinta la soo daayay sonkortii dhiigga lagu soo daray markiiba waa la ururiyay unugyada lagu kala xareeyay dhiiggii iyo maskaxdii maxaa ku soo dhacaya bilaa tamar bay noqonayaan dadka cuntooyinka noocaas la shiiday la cunaayay markuu sidaa maqrib u tukada ka bacdi caajis baa haya daaca qurun dibiro dadka qaarkood gaas iyo waxba ku kacsan salaada ma tukan karaya taraawiixda wuxuu raadinayaa masaajidka ka gaarsiiya keeba 10 daqiiqo ama taagnaan karaya uu dabaalanaya salaada waa aragtay salaada caadi soo tukan maayo masaajidka uu salaada ka degdeg jin badan yahay saas uu fadhiisanaya labada lugood uu saaw kala bixinaya calooshuu taagaya nafta haysa waxa maxaa u keenay cuntada sambuuska u keenay sambuuska kaliya ma hayda waa cunto kasta oo culus oo xilliga la cuno Soomaa waxa la mid ah kuwa gaabanta istul saaraya kamid ah bariiska iyo gaabanta iyo hilibka iyo maraqa madiimad maraqa buu ka laacaya waxa soo dhan hal mar buu diraya wuxuu u afuraya sidii inuu 5 sano oo gaajo ku soo jiray oo ka cararaya leeyahay waxa weeye maanta kuugu horeysa cunto dib dambe cunto waarkii sida ka fare buuxso garaafa biya 10 xabo sambuusa 15 xabo oo quraaca 3 kun oo xabxaba teeg biya oo qabo baraf halkan u yaala waxa soo dhan hal mar buu ku ridaya hadda xilligii aanu rabadaanta ahayn ee aanu soomanayn weligii inta ma cunin dadka inta cunay xilliga rabadaanta weligood xilliga rabadaanta xilli aan ahayn ma cunin inta maxay xilliyada kale u cuni weydii ma cunayo halka ma idin fahanteen taas waa sababta dadka saamuuska waxa cunay markiiba u dareemaan maxay daal hurdo caajis cibaadaadkii aanay ku hakan kareen halka ma idin fahanteen marka masaajidada laga tukado muxuu ahaa juska iyo laga tukado ma ku tukan karayo haduu doon ku dhex matagaya masaajidka nuuska carraa marka masaajidka arrinka labaadi cuntooyinka la shiilay ee sambuuska quraacu ay kamid yihiin waxay kor u qaadaan xanuunada wadnaha ku dhaca sababta kor ugu qaadayana waa maxay waa dufankii hadeertaan ka waramaynay ku darsada sambuuska xaafadaha lagu shiilo Soomaad arag maalintii koowaad saliid baa lagu shiilay maalinta labaad saliidii shalayto lagu soo shiilay sambuuska miyaa la daadinaya caagadii saliidda dib loogu shubaya waa la kaydinaya بريتو إسلا سليدي بدب ساموس كله ودب وحلاقي أبا إنه ريار كاس السليدة بيشبه كله ما يستو وهذا جو بيجي تتكوي سيستي وقالوا لي جد أنا دكتي اللي كده طور كمان كوي سيستم دونا تبي كوي سيستم أنا دكتي سليد مركا أي ضب كشو وحي نقطة كانسريس ايجنت كانسر صوابع وأنا متكمل وحياها ما أنت كانسر كأنه نقول بديه سليد هتي هل مرضوك كشو مرلوان لما يستعملها ترانس فات بين قنصة وحين قنصة كانسر سمين قنصة مركب وين حافظها اللي قد حافظوا حكوني ديس سليد أنا قد أوانس ديس كبده حسموش يقول فلسا هي وحوي واجب كي نقول تبين يا لا وحكي كله وساموس اللي قادمي ساموس كله تسوى الشرف كله يا شيء سما حلي وحي أفريقيا كورة هنا الشرف ولا يدي بعد الأفريقيا نقطتين وحكي كله يقعد الغاد وساموس اللي قادمي marka waxa weeye waa dhibaatooyinka waxa weyn arrinka saddexaad waa maxay dhibaatooyin xagga caloosha u leeyahay gaastri ha noqoto daaca qulun ha noqoto dheefshiidka qofka xun ha noqoto kii 10 xabee saamuuska cunay cashada ma cuni karaayo xilliga suxuurtu wali sii daacaya saamuuska waa furka cunay buu sii daacaya xillima afartii habeen uu daacaya wali marka waxa soo dhan waa xanuun dad fara badan markii talooyin ka raadsiiyay ay qaateen meelaha markaan marayay mahad celi wallahi niyo saamuuski iyo waan yaabada xusoo jiro xaga laga yimi gaaskan iyo laab jeexan iyo mushkiladan ku haystaa maxay saamuuski wixii ma 3 maalmood ka taayay birrix saasaanu ordayaaba masaajidku markuu salaada soo gaaro waxa la ku darday quraanka codku macaanay maad iska sii wadid awal waxa naga soo koobayo qul wallahi ma aqoonin su'aalka ilowida fahmin wakaas arrinka afraad ee kala iska ilaalin sabab maxay afur iyo casho wada socda dadka intooda ugu badan caadi u tahay wuxuu koonaya anigu afurada iyo cashada hal mar baan waxa weey u fadhiistay nin weyn baan mar labaad ma fadhiisan karayo
mar isu kay raaci afurkayga iyo cashadeedaba iyana waxa weeye ma fiicna arrinka kale iyaduna xilliga afurka aan wacnayn ee dad badanna miisaanka ku kordhiya waxaa ka mid ah timirta faraha badan leh dad badan timirta iskama qaban karaan kartoonka timirta oo dul fadhiisanaya uu ku ridayaa ilaa iyo haantu tiraahdo way buuxdaa caloosha markay fuul soo qoto ma aragtaa markaas uu joojinaya rubaca timirta imsa xabo timira ku jira ma garanayo uu dhamaynaya nus kiilooga uu dhamaynaya tan yare bacda ku jirta soo arag sidoo uu rifayo marba inuu ridayo daalka kale uga baxaya timirta faraha badan li miisaanka ay kordhinaysa waxaad cunaysaa waxa weeye glucose fara badan baa ku jirta uma baahanin sida uga timirtu waxay u baahan tahay in qadar lagu cuno 3 xabo 1 xabo ugu yar 3 xabo 5 xabo 7 xabo 9 xabo deynta wixii ka dambeeya waa iimaanka Soma 9 ha ka badin waliba hadda doonaysa inaad miisaanka kantarosho dadka waaweyn ee dhiikarka iyo macaanka waxyaabaha leeyahay waxa muhiim ah in aan 3 xabo timir aan ka badin hadda doonaysa miisaankaaga inaad kantarosho iska kala yareen 1 xabo oo timira way kugu filantay waxa jiray ciidan dhan oo saxaabadu ay ku baxeen oo timirta halkii maalin ay cuni jireen xabad timira qaswada ayaa garanaya wadaad soo baara qaswadan oo timir hadii in yaro timir ay haysteen oo ninka timirta yar haystaay maalintii 24 saacadood muxuu ku socon jiray xabad timir marba in yar buu ka qabanaya marba in yar buu muudsanaya marba in yar buu intaas ku wadaya ciidanka dhan 24 saacadood marka maalin dhan afurkaaga maxaa ku noqon kara xabad timir ku noqon kara iyo koobiya inta ma dila fahanteen waaya walaalkaas wuxuu soo qoray warqad ah ka waran in suqaarka lagu afuro suqaarku muxuu sharciga sambuus ku buuxinaya muxuu leeyahay saliid baa lagu dalacay Soomaha waana protein hilib baa ka buuxa roodi fara badan waad ku cunaysaa falaasad shaahana waad ku cabaysaa waxa soo dhan caloosha ma qaadi karaysaa markii koowaad ma qaadi karaysaa soo sax ma marka suqaarka hilibka sambuusaha quraaca wax kasta oo saliid dhexmaray wax kasta oo saliid dhexmaray xilliga afurka lama isticmaali karo ma ilaahay baa xaraan ka yeelay macnaheedu waa maxay caafimaadkaaga xaraam ka yeelay marka caafimaadkaaga dan ka leedahay dawaad iska deynaysaa hadii aad laakiin sida doonto aad u dhaqmaysaa leedahay wali dhalinyaraan ahay oo istijaabinaya kuwad gaabanta halka ma idin fahanteen way